soo horjeestay inuu baahiyo khudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo dastuuri ah oo ah maalinta 26 Juun waxaanu weydiinay inuu toos u baahiyo si cad ayuu u diiday sababta aanu hadda uga qaadnay waa taa horena wuxuu u galay dambiye la mid ah oo aanu digniino iyo wada hadalba ka sameynay maadaama uu 26 Juun in uu baahiyo ayuu si toos uga soo horjeestay annaguna ruqsadii Somaliland uu kaga shaqaysanayay baanu ka laalay wax kale ma jiraan laakiin Saleeban soo ma ogi telefishinka in qof ama shirkad ay leedahay oo Somaliland aysan lahayn telefishinka Universal waanu ognahay in qof leeyahay kuwa aanu amrayno iyo kuwa baahinayaba qof baale waxa weeye shirkaduhu inay private yihiin laakiin maalinta marka ay joogto national dayska iyo maalmaha qaranka waxa weeye cid kasta ama private ha noqoto ama public ha noqoto waa inuu engage gareeyaa ama uu ka mid noqdaa eventska qarannimada ee socda ee deegaanka uu ka howlgelay laakiin hanti qaran ma ahan telefishinka Universal ninba iskale waa ganacsade sharci gooni ay leeyihiin waxa ay tabinayaan iyo waxa ay ka tagayaan soo ma ahan hantida qaranka Somaliland uu leeyahay kamid ma ahan Universal waxaan kugu iri hawada uu ku shaqaysto iyo dhulka uu ku shaqaysto iyo codka uu ku shaqaysto iyo hantida profitka meeshu ka sameynaya waa Somaliland Saleeban Universal Soomaaliya oo dhan buu la hadlaa Hargeysa kaliya iyo shacabka Somaliland lama hadlo xafiiskiisa London buu ku yaalaa maalmuhu waa 365 maalmood sanadkii hadduu nagu haysto uu kaga helayo ummadda Somaliland kaga shaqaysanayo oo dhammaan shirkadihii oo dhan xayeysiiska kaga qaadanayo oo uu hawadii ku shaqaysanayo oo uu dhulkii ku shaqaysanayo oo uu professionalkii ku shaqaysanayo 3 maalmood oo maalmaha qaranka in uu baahiyo hadduu diido annaguna 362 maalmood oo kale aanu diiday that is the whole story Universal TV waxa ka horeeyay telefishinka Star oo xirteen isna maxaad ku maagteen Starna wuxuu galay wax la mid ah kuwa oo aanu gadaal ka soo sheegi doono oo u baahan inuu fahmo in qof kasta oo isku daya waxa ay wax la mid ah inay talaabada laga qaadayo ma aha oo kaliya labadooda laakiin wax alla wixii ka soo horjeesta ama wax u dhimaya ama dafaynaya ama constitutionka dalka iyo madax banaanadiisa taabanaya waxa weeye noocu yahay ee warbaahina waxa weeye u ogolaan mayno inay iyadoo sida dalka u duminaysa ama u dhaawacaysa ama u dhibaysa inay naga hadana lacag naga dhex samayso sidaad u hadlayso waxaad moodaa nidaam dictatori oo kala ah Saleeban adduunyadan casriga ah horumartay dimuqraadiyaddii hantida gaarka loo leeyahay iyo hantida dawladda la kala garanayo inaad sida u hadasho soo ma moodid xoogaa in waaye hore laga soo gudbay luuqadooda aad ku hadlayso waxa weeye u hadli maayo waaye hore dawladda aan ka tirsanahay waa dawlad dimuqraadiya oo doorasho ku timid TV-ga ama telefishinka ka hor yimaada inaanu dalka ka shaqayn dastuurka ifsiinay haddii dastuurka meel lagaga dhacana cidda ka mas'uulka ah ee uu noo sii dhiibtay waa annaga inaanu ilaalinana xaq baanu u leenahay inta ka shaqaysanaysana waxaanu leenahay si gobonnimo leh oo dastuurka qaranku ogol yahay uga shaqaysta dastuurka Somaliland miyaa dhigaya telefishin uu qof furto hanti geliyo inaad ku qasabtaan khudbadda madaxweynaha baahiya haddii kale waa idin xidhaynaa maya waxaanu xaq ugu leenahay dastuurka Somaliland ma qorayo dastuurka Somaliland in la ixtiraamo madax banaanida Somaliland qof kasta oo ku nool ciidda Somaliland ayuu dastuurku qorayaa oo uu raaco taa macnaheedu waxa weeye mideeyaha qaranka ee uu ugu yeeray dastuurku madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland khudbadii xorriyadda marka uu fagaare ka jeedinayo cid kasta oo TV ay ka shaqaysataa waa inay baahisaa